assalaamu calaykum. maanta waxaynu ka hadlaynaa xanuunka gaaska iyo weliba cuntooyinka lagu daaweeyo amaba u roon qofka gaaska qaba. gaaska waa xanuun badanaa ay Soomaalidu sheegato, wuxuuna ku dhacaa caloosha, waxaana keena dhowr arrimood oo kala ah. daawooyinka qaarkood sida aspirinka iyo weliba antibiyootigiska qaar ka mida iyo kuwo kaleba. aashitada caloosha oo badata taasoo ay badiso gaajada muddada dheer qofka haysa, ama xanuunka aashitada caloosha oo batay. waxyaabaha keena gaaska waxaa kaloo ka mid ah cabitaanka aalkolada leh iyo weliba cuntooyinka kuwa dhanaan ama dufanka badan leh ama basbaaska leh ama la khamiiriyey. waxaa kaloo keena gaaska sigaar cabidda iyo weliba isticmaalka tubaakada. haddaba daawadayaal, qofka qaba xanuunkan waxa uu dareemaa calaamadaha ay ka mid yihiin calool xanuun, boog xanuun ama caloosha oo idil, khaas ahaan qaybaha kore ee bidixda iyo midigta. waxyaabaha kale qofku dareemi karana waxaa ka mid ah dibro ama daaco iyo welibana hawo caloosha ku dhex wareegaysa oo mararka qaar qofka isku taagto, qofkuna uu dareemi karo in qodxa caloosha dhexdeeda looga mudmudayo. sidaas awgeedna qofkaasi mar kastoo uu daaco ama uu dhuuso ayuu nafisaa. waxyaabaha kale ee ka mida qofka gaaska qabaana uu dareemi karo waxaa ka mida kuleyl iyo kor cuncun, gaar ahaan calaacalaha iyo cagaha iyo caloosha. sidoo kalena waxaa ka mida waxyaabaha qofka gaaska qabaa uu dareemi karo afqalayl iyo weliba carabka oo dhabra yeesha, waana calaamad ay badanaa ka cawdaan dadka gaaska muddada dheer uu hayay. calaamadaha kale ee gaaska lagu garto waxaa ka mida hurdo xumo, hurdada oo qofka ka qasan, iyo qarow iyo nixitaan hurdada dhexdeeda ah, gaar ahaan hadduu qof kaa kiciyo hurdada. astaamaha kale ee gaaska lagu garto qofkuna uu isku arki karo waxaa ka mida wadna garaac, oo qofku waxa uu malaynayaa inuu wadna qabad hayo markuu gaasku ku kacsan yahay. sidaa awgeedna gaasku waxa uu leeyahay wadna garaac, iyo waxa kaloo uu leeyahay cadaadis dhinaca feedhaha ah, maadaama hawada calooshu ay isku xidhay ay feedhaha cadaadin karto. astaamaha kale ee gaaska lagu garan karo qofkuna isku arki karo waxaa ka mida laabjeexa, qofka oo cuntada cuna ama biyo kulul ay ka soo godoomaan oo afka ka dareema qadhaadh iyo weliba dhanaan isla socda. waxaa kaloo ka mid a calaamadaha lagu garan kara gaaska warwareer, ama in miisaanka uu kaa lumo marka aad istaagaysid ama jiifka aad ka soo fadhiisato. taas macnaheedu maaha in dhiig yaran ay ku hayso, ee waa calaamadaha gaaska. haddaba qofku waxa uu dareemi karaa calaamadahaas mid ama laba ka mid a. qofka hadduu gaas qabo waa inuu dhakhtar la xidhiidhaa si loo daaweeyo loona ogaado gaaska uu qaba nooca uu yahay. sidaa daraaddeedna nabarka gaas dariga meesha uurku jirta uu kaga yaala waxa ay ku xidhan tahay qaabka qofku calaamadaha aynu soo sheegnay u dareemayo. haddii gaajada ama dharagta ay u daran tahay qofka, iyo hadduu xanuunku hal meel ku eeg yahay ama caloosha ku baahsan yahay, ama xanuunka uu dhabarka meesha bogga ku aadan uu ka qabanayo qofka. warbixintaasna waxaa wax ku dhisi kara oo wax ku ogaan kara dhakhtar aqoon u leh cudurrada gaaska, ee haddii aad calaamadaha isku aragtay la xidhiidh dhakhtar. dhinaca kalena xanuunka gaaska qayb badan oo ka mida waxaa keenta bakteeriyada loo yaqaano helicobacter pylorus. sidaas awgeedna qofka jeermiskan laga helo waa in daawada gaaska loogu daraa daawo antibiyootiga si loo dilo bakteeriyada gaaska ku samaysa caloosha. daawada haddaba ku soo dhowow talooyinka dhakhtareed ee loogu talagalay lagana rabo qofka gaaska qabaa inuu qaato. talooyinka dhakhtarka waxaa ka mid a inaad daawada sida lagu faray aad u qaadato, inaad cunto oo keliya cabbitaan cad iyo cuntooyinka aan dhadhanka lahayn sida kuwa la dubay ilaa aad ka bogsato. dhinaca kalena ka fogow cuntada suugada badan, waxyaabaha saliidda leh, canjeerada iyo wixii khamiir leh, dhandhanaanka, basbaaska, cambuulada iyo wixii qasacadaysan, iyo wixii la shiilay oo idil. geesta kalena si tartiiba cuntadaadii caadiga ahayd ugu soo laabo oo waxaad cuntaa xaddi yar markiiba. gaajada iyo dharagtu adiga labaduba way kuu daran yihiin. cunto yar mararka qaar cun, 3 waqti ee la cunaa kuma anfacaysa haddii aad xanuunka gaaska qabto. dhinaca kalena xilliga aad jiifan rabto 3 saacadood ilaa 4 saacadood ee ka horreeya ayaa lagaa rabaa inaad wax cunto. iska ilaali inaad ku seexato calooshaada oo buuxda, taasi waa halis haddii aad qabto xanuunka gaaska. geesta kalena gaajada inaad ku seexato iyaduna waa halis haddii aad gaajo dareento marka aad jiifan rabto.
waxaad cabtaa caano aan dhanaan lahayn oo qabow. caanaha waxa ay yareeyaan aashitada caloosha waana daawo aad u fiican. geesta kalena gaaska marka uu halis ku noqdo qofka islamarkaana nabar yeesho, qofka waxa uu matagi karaa dhiig ama waxa uu dhigi karaa saxaro dhiig leh. taasi waa halis, inkastoo dadka qaar aaminsan yihiin marka uu dhiigga matago inuu caafimaadayo. taasina ma aha mid saxa, oo waxaa dhici karta in qofka uu dhiigbax u dhinto haddii xidid caloosha ka furmo oo nabarka uu qodo. xaaladduna markay halkaa marayso, fadlan cisbitaal si degdega u tag. haddii aad isku aragto dhiig saxarada la socda, waxaad ku ogaan kartaa saxaradaada oo madow noqota, laakiin ma arki doontid dhiig guduud ama casaana. imminkiiyo haatana daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan cuntooyinka dabiiciga ee u wanaagsan gaaska. xanuunka gaaska waxa uu noqon karaa mid ka dhasha aysiidha ama aashitada oo ku badata caloosha, waxaana jira cuntooyin dabiiciya oo yareeya aysiidha ama siyaabo kale uga hortaga boogsamaysanka caloosha. ugu horrayn, cuntooyinka dabiiciga waxaa ka mida malabka. maxaa yeelay malabku waa daawo, waxaana lagula taliyaa qofka qaba gaaska in subaxdii marka uu soo tooso qofku isagoo oo aan waxba cunin, in biyo caadi ah uu ku darsado hal malgaacad ama hal qaado oo malab saafi ah. kadibna qofku waa uu isku qasayaa oo waa uu isku milayaa, sidaasna waa uu ka cabbayaa. badanaana gaaska nooca istareeska ka dhasha ama dadka boogcaloleedka qaba waa ay ku caafimaadaan sidaas. haddaba waxaa kaloo muhiima inaad iska hubiso in malabka uu saafi yahay. hadduusan ahayn saafi, waad ku sii xanuunsan kartaa. dhinaca kalena cuntooyinka u wanaagsan qofka gaaska qaba waxaa ka mida burka shoofaanka ah. waa bur ka samaysan maaddo afka ingiriisida loo yaqaano oatmeal. waxaa la yidhaahdaa waa cuntada ugu fiican ee ay ku quraacan karaan dadka gaaska qaba, maxaa yeele caloosha markii lagu rido waxay nuugta wixii aysidhee caloosha ku jiray. gaajadana way u fiican tahay oo waa lagu dhargaa. geesta kalena cuntooyinka u wanaagsan qofka gaaska qaba waxaa ka mida sanjabiilka qoyan. sanjabiilka qoyan waxa uu yareeyaa laabjeexa iyo biyaha kulul ee qofka ku soo rogmada, gaar ahaan markuu qofku cunno cunto gaas ku kicisay. haddaba iska ilaali sanjabiilka qalalan, kaasi gaaska waa uu kiciyaa. qaabka loo isticmaalo waa inaad biyo caadi ah dhex dhigtid si uu ugu milmo, kadibna biyaha aad cabto ama aad cunnada ku darsato. waxyaabaha kale ee u wanaagsan qofka gaastariga qaba waxaa ka mida geedka dacarta, waxaana lagu daaweeya gaaska nabarka ah oo diida inuu raysado. haddana waxaaba jira shirkado u sameeya qaab daawo ah, laakiin ku dadaal inaanad si toosa u isticmaalin geedka dacarta, laakiin aad raadsato isagoo la sifeeyey. waxaana lagu iibiyaa ama lagu gadaa farmashiyada iyo dukaamada waaweyn qaarkood, wuxuuna daboolaa nabraha caloosha ku yaalla oo uu gaasku keeno, waana daawo aad u fiican. geesta kalena qudaarta iyo cagaarka iyo saladhkaba intuba way u wanaagsan yihiin qofka gaaska qaba. dadka badanaa badsadana gaas iyo caloolfadhi intaba isma arkaan. dhinaca kalena cuntooyinka gaaska u roon waxaa ka mida caanaha, gaar ahaan caanaha subagga laga saaray oo la qaboojiyey. waxayna yareeyaan aysiidha caloosha, waana muhiim in caanaha aysan ahayn kuwa fadhi ama suusaca. waa inay ahaadaan dhay freesha ama caanaha qasacyada ku jira. cuntooyinka kale ee u wanaagsan qofka gaaska qaba waxaa ka mida shaaha cagaaran. shaahan oo faa'iidooyinkiisa aan la soo koobi karin, haddana waxaa la sheegaa in gaaska iyo dibirada uu yareeyo. waxaa kaloo ka mida cuntooyinka qofka gaaska qaba u roon babayga. maxaa yeele babayga caloosha wuu bixiyaa ama waa uu socodsiiyaa, wuxuuna yareeyaa aysiidha caloosha. dheefshiidkana waa uu wanaajiyaa oo waa uu u roon yahay, laakiin liindhanaan iyo sonkor ha ku darin. ugu dambayntiina intaa waxaaba sii dheer inay jiri karaan cuntooyin iyo waxyaabo dabiiciya oo aan halkan lagu soo koobi karin, oo qofba khibraddiisa uu ku arkay inay faa'iido u leedahay. waxaa kaloo jiri karaa waxyaabo lagu kala duwanaan karo oo qofka gaaska ku kicin kara meesha dad kale uu ka dejin karo. waxyaabahaas waxaa ka mida liinta, muuska, kalluunka, timirta iyo waxyaabo kale. haddaba waxaa muhiima inaad ka fogaatid basbaaska, waxyaabaha shiilshiilan ama dhanaanku ku badan yahay, cuntada khamiirka lagu daray sida canjeerada ama laxooxda qaarkood, cabbitaannada aysiidhka leh sida qaraha ama xabxabka, cananaaska iyo wixii la midka ah.